بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. maanta ay tahay taariikhdu 19 bisha afraad 2020 maalin axada. waxaynu bilaabaynaa haddii alla yiraahdo cashirka ma garanaysaa maadadii luqa carabiya galaaska lixaad وموضوعنا وياهي المحافظة بالصحة على الصحة إن ليلى عافماتك. وحين قال لي يعني ما أنت باللوني جزكي لبعض كتابكي إنه صار قلنا اللغة العربية ها جلسك اللحات إنه ما أنت بالله بينا موضوع عشر كوحويان المحافظة على الصحة إن ليلى أمر دوره عافماتك. اهتم الإسلام كي أيا اهتمام سيء أنت أنا أقول عشر كأهدافتين عشر كلنا وحكم ذا كو إن نشجنا فضل العلم وأهميته علم الفلسفة أهمية ديسة النظافة ومكانتها في الإسلام هي العناية بالصحة وعدم إهمالها إن دورنا أميل على إنه عافماتك أن نضيعن هي نظافة هي إن نخشك إنه هل كي كجت إسلامك ujeedooyinka cashirka iyo hadaftiisa kuwaas ka mid ah hadii guda gal cashirka almuhaafadatu in la ilaaliyo ama la dhowro ala sihhata caafimaadka ayuu ku saabsan yahay mawduuca darsiga koobaad. ihtimaam islaamku wuxuu daniyay ama ihtimaam u siiyay nadaafada ihtimaaman cadiiman danayn aad u weyn ayuu daniyay islaamku khilaal al-usur intii loo guday jiray casriyadii ama waqtiyadii al-mukhtalifati ee kala duwanaa. العصور وحل هذا وقتيه أما حليه. العصر الحديث وحل هذا وقت كإما كين يشوفنه. العصر القديم وحل هذا وقتي نصاد عفني. العصور مركا وحين نقنصها جمع عصرين أي نقنصها. وإذا كانت هذه هاي أول سورة دي كوباد ونزلت سورة في القرآن قد تحدثت متكشكين سعبك والرميسي عن العلم علمك في قوله تعالى إلى هذا الكساء اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقد جاءت بعدها وحادبه كتبت مت سورة داسو أمرت أمر كبحسي أمضتك أمريسي بالنظافة في قوله تعالى إلى هذا الكساء تعالى سرية وثيابك مريهاga فطهر نظيف أما طهر. waxaynu soo qaadanay aayadaas nabiga waxa ku soo degay markuu joogay qaar xira bilowga suurada iqra oo nabiga waxa lagu yiri اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا waxay ka waramayaan cilmiga iyo ahmiyadiisa iyo nabiga la amray in uu akhris sameeyo. aayadahan dambe oo islaam nabiga ku soo degay kaleey salaatu wasalaam waxay iyaguna ka sheekeynayaan nadaafada. marka waxa weeyaan qaybta labaad marka labaadeen ilaahayba waxay soo dejiyay waxa oo kamid ahaa in la is amray ama qofka la amray nadaafada inuu ilaaliyo amba uu dhowro. waxa la doonayaa hadii alla yiraahdo in nadaafada lagu dadaalo waxaanu nabigu kaleey salaatu wasalaam nadaafatu min al-iimaan nadaafada iimaanka ay kamid tahay. lida sida daraadeed yajib waxa waajiba ala kulli shakhs qof kasta waxa waajib ku ah ayu xaafido inuu ilaaliyo ala sihhatihi caafimaadkiisa inuu ilaaliyo oo dhowro ayaa waajib ku ah. ليكون سوء نقض قوي الجسم قف جركي سوء حوق ليهي سوء نقض نشيطا أو إسلام مركانا في فرعون. قوي الجسم وحل هذا قفك حوق له محاكا سورتي هذا ضعيف الجسم قفك تبطير. وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مؤمنك أود لما حوق له أي إلهي حقي اللي قد شعريها مؤمنك ضعيفك يضع إسلام مركانا mid kastaaba khayr ku jiro oo ma garanaysaa dadka qofka muslimka ah uu yahay qof khayr leh. Allahumma salli ala Muhammad. lida sida daraadeed yajib waxa waajib ala kulli shakhs qof kasta waxa waajib ku ah inuu xaafido inuu ilaaliyo ama uu dhowro ala sihhatihi caafimaadkiisa liyakuna suu noqdo qawiy al-jism qof jirkiisa xoog leh nashiitan oo fircoon lilmudaakarati فرعون إنه محموداكرية أما مراجعية عشرة أما دروستيسي أما مقارنة ساوحة وبرني والاطلاع وحو طالعني وفي جميع أعماله يدمان أعماش الصائد
acmaasha qofka qabanaya hadday salaad noqoto iyo hadday acmaashi kale noqotoba qofku waa inuu si uu caafimaadkiisa u ilaaliyo waa inuu qofku magaranaysaayey qofka nashiidka ah amba xoogga leh acmaal kasta way u fududahay inuu qabto halka qofka kalena ay ku adag tahay wadalika biitibaaci waa inuu raaco annasaaix waanooyinka aw irshaadaat ama talooyinka attaaliyati ee soo socda nasaaix waxaa jamcu nasiixa weeye waa nasiixa ama waano jamceedii weeye alirshaadaadna waxaa weeyaan jamcu irshaad waa waanooyinkii amba talooyinkii number 1 waxaa la doonayaa an yanaama mubakiran qofku inuu seexdo goor hore amba xilli hore inuu seexdo mubakir waa 9 iyo 10 inta ka horeysa waa inuu qofku hore u seexdo si uu salaada subaxna ugu soo kaco isla markaana uu helo ugu yaraan 8 saacadood oo hurdo u helo lianna maxaa yeelay as-sahra soo jeedka amba saamaleelka iyo cadam tanawm iyo hurdo la'aanta yadurru waxay dhibaysaa bisixati caafimaadka cadam an-nawm waxa la yiraahdaa hurdo la'aan hurdadu qofka ku yaraata ayaa waxa la yiraahdaa cadam an-nawm ويضعف waxa uu kale uu magaranaysaa daciifinaya hurdo la'aantaas waxay daciifinaysaa Allahumma salli ala Muhammad al-jisma jirkii ayay daciifinaysaa oo maxay imanaya jirkii ayaa daciif noqonaya hadii hurdo badan iyo magaranaysaa uu heli waayo caafimaad darrana way ka imanaysaa meeshii number 2 waxaynu galeynaa an yunadhima inuu qofku nidaamiyo weeye mawaaciida aklihi xilliyada ama gooraha uu wax cunayo xilligu wax cunayo waa inuu qofku u xadidan tahay waa inaanu qofku mar walba wax iska cunin sida awadeed baa nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nahnu qawmun la naakul hatta najuu wa la naakul hatta nashba waxaanu nahay dadaan waxba iska cunin ilaa ay ka gaajoodaan waxaanu nahay dadaan wax cunin ilaa ay ka dhargaan yani cuntadii ma wadayno oo ma cunayno ilaa aanu ka dhargno qofku muslimka waxa laga doonayaa inuu qaybiyo calooshiisa 3 qaybood thuluthun lit'aam wa thuluthun lishraab wa thuluthun linnafas ayaa la doonayaa فلا يتناول مقفك ما قاضنا يا أنبا معنيه الطعام عنتذا إلا في أوقات وقتية مويانة معيمة عيما فإن إدخال الطعام على الطعام عنتذي عنتذ لقد الكيو أما لقد العنو فإن إدخال الطعام على الطعام عنتذي لقد الكيو عنتذي على وش هذا كتير عنتك لقد الكيو مضر وحي تهمد بيسا بالصحة عافماتك الصحة واحد لهذا عافمات أي لهذا qodobka saddexaad waxaanu qaadanaynaa ay tanaawala qofku waa inuu isticmaalo at'imata cuntooyinka al-mughadiyati ee nafaqada leh kal fawaakihda iyo khudrawat khudaarta iyo luxuum hilibbaha iyo walbayd iyo beedka khudaarta waxa kamid ah magaranaysaayay fawaakihda waxa kamid ah al-mawz wal burtuqal wal mango wal batiikh wal tamr wal 'inab ayaa kamid ah waxa kamid ah iyadana waxa la yiraahdo qudaarta waxa kamid ah al-jazar dabacsiya makaroogi al-salta salarki khiyaar baamiya al-malfuuf oo isaguna kaamishki al-basal kuwaas kamid ah al-luhum waxa kamid ah iyaguna laba u qaybsamaano waxay kala yihiin al-lahm al-ahmar iyo al-lahm al-abyad al-lahm al-ahmar waxa weeyaan hilibka geeli hilibka lo'da iyo hilibka ariga al-lahm al-abyadna waxa weeyaan waa hilibka kalluunka iyo hilibka digaaga isla markaana علماء المتخصصين في هذا المجال waxay ku talinayaan in la cuno al-lahm al-abyad sida daraadeed halkaas inuu ku joojinayna cashirkeena iska soo qaab insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi